السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa barta horyaalka shacabka kusoo dhawaada markale iyo is-arag wanaagsan. maanta waxaan idin hayaa muuqaal aan filayo dad badan inay xiiseyn doonaan insha Allah, wax badanna ay ka faa'iidi doonaan. maanta waxaan idin hayaa muuqaalkan wuxuu gaar u yahay dadka degan dalka Jarmalka, siiba dadka familada ah ayuu si qaas ah u quseeyaa. waxaan ka hadli doonaa maanta waxay tahay badarooyin ama dadka caawiya ee cadaanka ah. haddii aad family tahay oo kale waxaad arkaysaa dadka familada oo kale waxay jiraan mararka qaar dad caawiya, ama dumar ha ahaadaan ama rag ha ahaadaan, kuwaas oo badanaa ka caawiya oo kale waxyaabo kala duwan oo kale. marka muhiimadu waxay tahay dadkaasi badarooyinka la yiraahdo ee ku caawiya adigoo family ah ama adigoo kaliya ahba, maxay dadkaasi ay muhiimadu tahay inaad ay ka caawiyaan, maxaas uga baahneen. insha Allah markaad muuqaalkan daawatid wixii ka anfaca ee aad ka faa'iidana ka qaado, intii aan ka anfacayna waa kaas. muhiimadu ma ahan qasabna ma ahan inaad wixii aan kuu sheegay anigu halkan kaaga tagiyo aad kulligiis qaadatid, qasab ma ahan. bal fiiri insha Allah, adiguna waad fahmi kartaa wixii ka anfici kara iyo wixii kale. marka waxaan soo qaadan doonaa faa'iidada iyo khasaarada ku jirta dadka caawiya ee la yiraahdo badarooyin. marka mar walba waxaan ku hormari doonaa insha Allah faa'iidada ayaan ku hormari doonaa, qaybta positive kan ku hormari doonaa, negative kan insha Allah waxa way gadaal baan u dhigan doonaa. muhiimadu marka haddii aad reer tahay oo aad ilmo leedahay ama aad kali tahay, qodobka koowaad waxa ku wanaagsan qof haddii uu jiro ku caawinayo oo Jarmal ah, ama dhinaca dawladda ha kaaga yimaado, ama sida kale haddii aad isku barateen oo kale, waa isku mid un mar walba. wax ay ku kala duwan yihiin malahan qofka markaad aad saacadi isku barateen iyo markuu dhanka dawladda ka yimaado. mar walba adiga xaq leh, adiga ayaa ah qofka la caawinayay, adiga xaq u leh qofkan inaad aad caawi iyo inaad diidid, labadaba adaa xaq u leh. ma jirto meeshan wax qasab ah oo qof ku qasbi karo. dawladda laftirkeeda ma ku qasbi karto, ma ku dhihi karto ilaa qofkan ha ku caawiyo. codsiga marka hore waxa laga yaabaa inaad adiga u dirsatay inuu qofkan ku caawiyo, ama qof aad caadi isku barateen ha noqoto. marka waxaan ku leeyahay boontiga koowaad ee muhiimka ah waxa waaye haddii uu qof ku caawinayo, muhiimada koowaad ha ka caawiyo warqadaha dawladda. dawladdu waxay ku soo diraysaa warqado kala duwan oo tiro badan oo qaybta sharciyada ama raadhooska kale kaaga imaanaya oo kale, socialka oo kale kaaga imaanaya, kuwa ilmaha oo kale kaaga imaanaya, yugan amtiga oo kale, kuwa job centerka badana kaaga imaanaya oo kale, kuwa Auslander beholder kaaga imaanaya oo kale, way kala duwan yihiin. marka qofkaas waxyaabaha kugu muhiimsan aad uga baahan tahay waxa waa warqadaas inuu ka caawiyo, akhrintooda iyo jawaabitaankooda, inuu ku akhriyo iyo warqadaas inuu ka jawaabo. waa qodobka ugu muhiimsan. badana qodobkaas ayuu qofku u baahan yahay, sababtoo ah dawladda hadday warqad tirada ka badato kuu soo dirto ma taqaani meel laga maro, mana garanaysa. marka dhibaatada ugu weyn ee dadka haysatay ee aniga laftirkeyga haysatay midaasaa ka mid ah. marka warqadahaas qofku ha kaa caawiyo. qodobka labaad ee muhiimadu ay tahay inuu qofku kaa caawiyo waa warqadaha aadan aqoon. warqado badan oo tiro badan marka qaar boso lagu ridayaa, qaar waxaa laga yaabaa inay waxyaabo kala duwan ku qoran yihiin. marka waxyaabahaas oo kale warqadaha aadan aqoon ee aadan garanayn, laakiin laga yaabo marka qaar xataa inaad adresskaas ama magaca shirkadda kuu soo dirto oo kale garatid oo kale, qofku ha kaa caawiyo. waa wax wanaagsan, adigana kuu roon, ku anfacaya, dantaaduna ku jirto. waxaan haddan ka hadlaynaa waa waxa dantaadu ay ku jirto. midda saddexaad waxay tahay warqadaha ballamaha ama warqadaha ballanta inuu qofku kaa caawiyo. tusaale oo kale waxaa laga yaabaa inaad dhakhtar oo kale aad u baahan tahay oo kale, dhakhtarka oo kale qofku uu kaa caawin karaa inuu ballan kuugu dhigo oo kale.
waxa laga yaabaa inaad garanayn marka sababta aan muuqaalkan u sameynayo wuxuu yahay ama qofkaani aan uga hadlayo waxay tahay waa waxa aad garanayn oo uu qofku ka caawinayo marka ballanto kale qofku waa inuu ka caawiyaa waa inaad dhahdaa qofka ballanto kale iga caawi ballanta ku dhigo laakiin wax ka baxsan aysan jirin waa ballanta ama ballan dhigashadoo kale inaad adiga ballan dhigatidoo kale ama in adiga ballan lagu soo dhigoo kale lagu soo diroo kale warqad ah waa inuu ka caawiyaa qodobka afraad asna waxa uu yahay waa dhaqaatiirta ilmaha kale waa haddii aad ilmo leedahay oo kale inuu qofku ka caawiyo dhaqaatiirta ilmaha inuu ama kaala hadlo kale haddii ay ilmo ku dhashaan oo kale waa inuu ballan kaaga dhigo kale waxyaabaha noocaas waa adiga ballantii un bay soo hoosgelaysaa waa inuu kaa caawiyaa ama adiga dhakhtarkaaga oo kale adigoo kale tusaale oo kale house artistkaaga dhakhtarada way badan yihiin way tiro badan yihiin laakiin house artist oo kale dhaqaatiirta noocaas oo kale waa inuu uu kaa caawiyaa oo kale ama uu ballan kaaga dhigaa oo kale waa adigoo qodobkaas soo hoosgelaysaa marka dhaqaatiirta ilmahoo kale waa muhiim inuu kaa caawiyo marka qodob shanaad ayaa jira qodobkan shanaad marka waa qaybiyey waa raacidoo kale qofkaas muxuu kuu raaci karaa hadda waxaan ka hadlaya waxyaaba uu kaa caawinayo warqadaha iyo ballamaha iyo waxyaabaha noocaas oo kale waa wax adigu ama telephone ama email ku saabsan waayo ama warqada la akhrinayo waayo waa qodobka 1 ilaa iyo 4 laakiin qaybtan shanaad waa raacitaanka oo kale qofka qudrooyinka ah muxuu kuu raaci karaa maxaad uga baahnaan kartaa waa haddii aad qofkaas u baahnaatay inuu ku raaco kale haddii aad u baahnayn waa alxamdulillah waa sidii la rabay laakiin haddaad u baahatid oo kale haddaad u baahatid xafiisyada marka qodobka shanaad waa xafiisyada kuu raaci karaa xafiisyadu qofka kuu raaci karo kale waxa kamid oo kale oo aad adiga codsan kartid oo kale inuu kaaga caawiyo kale waa dawladda oo kale job center oo kale xafiisyadooda kale aad tagto qolooyinka lacagaha ku qaabilsan oo kale ama qolooyinka waxbarashada qaabilsan oo kale qaybta raad hooska tagto oo kale qaybta lacagaha qofka qaabilsan oo kale dhowr nooc bay leedahay xataa yugan amtiga way ku taalaa ishtaan amtiga xataa way ku taalaa qaybta way kala duwan yihiin marka xafiisyadaas oo kale qofku inuu ku raaco kale uu ka caawiyo kale waxaad u baahan tahay oo kale inuu saas kugu soo gudbiyo waxa kuu soo haray waxay tahay qodobka waa guryahoo kale haddaad guri raadsanayso qofku waa inuu ka caawiya waa kuu muhiim kindergartenka oo kale waa inuu kaa caawiya oo kale markaad macnaha kindergartenka oo kale xafiisyadooda kale tegaysid oo kale waxyaabaha markaas aad u baahan tahay cunugaagu u baahan yahay waxyaabahaas u baahnayn oo kale iskuullada kale laftirkooda waa kuu muhiim marka la leeyahay elton ishbaresh oo kale markay jirto oo kale dadka waaweyn oo ay wada hadlayaan oo kale waxaa laga yaabaa oo kale in uu macalinkaaga ama macalinkaaga ilmahaaga macalinkooda uu kusoo diro kale ballan aad u tegay sidoo kale aad ka wada hadlaysiin oo kale cunugaaga siduu yahay waxbarashadiisa kale markaas oo kale waa kuu muhiim qofka badrooyinka ku ah oo kale inuu ku raaco kale dhaqtarada ilmaha oo kale laftirkeeda waa kuu muhiim sababtoo ah qofkan markaad dhakhtarka u tagtid oo kale dhakhtarka wuxuu kuu sheegaya oo kale ilmaha maxaa u wanaagsan inuu qaato oo kale maxaase u wanaagsanay waxyaabahaas oo dhan uu kuu sheegaya tiro badan waxaa laga yaabaa inaad garan weydid laakiin waa kuu muhiim qofku inuu kaa caawiyo marka xafiisyadaas waa kuu muhiim waa saa kuu sheeg waa kuwa dawladda guryaha dad raadsanaysid iskuuladooda kale ilmaha kindergartenka oo kale marka intaas waa waxyaabaha kuu muhiimsan qofka badrooyinka inuu kaa caawiyo maxaana muhiim ahayn oo aadan uga baahnayn inuu qofku uu kaa caawiyo kale ama adi laftirkaaga ku gaar waa qodob qaybtan waa qaybta ugu muhiimsan qaybta negative-ka waaye waa qaybta ugu muhiimsan marka haddii ay ku anfacdaan waa kaas qodobka koowaad waa xogtaada ama waxa aad leedahay qofkan ku caawiyo waa inaad uga warramin badanaa isdhexgalka aadka u tirada badan horta waa dhibaato laakiin inaad uga warramin adiga waxaad leedahay tusaale kale lacagaha aad dirto kale waa inaad uga warramin lacagta aad dirto kale meeshaad ka dirto kale qofka kuu diro kale lacagta qofkaad u diray sidoo kale waa inaad waxyaabahaas uga warramin lacagta ku soo gasho kale waa inaad qofkan aadan uga warramin oo aadan u sheegin oo aadan dhihin lacagtaas ay soo gasha
kaydkaaga oo kale kayd haddaad leedahay oo kale kayd lacag aad ku aruursatid oo kale ama lacag meel ku taala ama waxyaaba noocaas waa adig kayd aad leedahay ama wax ku qaas awa waa inaa qofka batrooyinka aad uga waran kaararka lacagtaada oo kale waxaa laga yaabaa oo kale kaarar dheeraada inaad leedahay oo kale dadku isku mid ma ahan marka waa inaad u sheegin oo aad dhihin kaar dheeraada leeyahay tusaale kale marka qaar oo kale markay dawladda ama job centerka oo kale kuu soo diro oo kale warqado wuxuu ku leeyahay haddii aad kaarar dheeraad leedahay oo kale halkan ku qor haddii aad kayd gaar leedahay oo kale halkan ku qor waxyaas kale waa la weydiinaa marka waxyaas badanaa ma wanaagsana adigana kuma roono inaad qortid inaad samaysid sidaas marka xogaha kuu gaar ah qofka aadan marka taas wax kale oo soo hoosgelaysa waxay tahay waa inaadan qofka uga waramin waxa aad jeceshahay ama qofka aad jeceshahay iyo qofka necebta waa inaad uga waran badanaa qofkaas ha ahaado qof adiga ama Soomaali kula ah ama kula joogo kale ama qof ka maqan oo kale ama qof Jarmal ah ama waxay noqoto kale ama dawladda qayb ka mid ah bataatanba waxyaabaha niyadaada ku jira ee adiga ku gaarka ah waa inaad uga waramin qofkan batrooyinka ku ah sababtoo ah qofkan wax walba uga warantid uu ogaanayaa wax walba iska dhici kara birito wala isku dhici kartiin oo kale ama wax walba uu sameyn karaa marka waxaan kaaga digayaa inaad aad qodobadan iska ilaaliso taas waa qodobka koowaad ee laga rabo inaad qofkan aad la wadaagin qodobka labaad waa gurigaaga sida aad ilmahaaga cuntada ugu karisid oo kale ama gurigaaga aad u maamusho oo kale ama adiga aad cunto u samaysatid oo kale waa ku muhiim qodobkan waa inaad qofka horta muhiimada koowaad uusan qofkaas jikadaada iyo adiga saad wax u samaysanaysid iyo uusan badanaa soo faragasha qofka adaa xaq u leh maalintuu kuu imaanayo warqad baad u saxiixaysaa waxa uu kuu qabanayo laakiin waa saan kuu sheegay qodobada ugu horeysa inuu qofku kaa caawiyo ayaaba muhiim ah uusan waxyaabahan kale usoo gudbin isdhexgashiin oo kale dhexgelitaan macnaha waxaan ka wadaa oo kale aad isku milantiino qof uu noqdo camal gurigii ka mid oo kale waa mar walba oo sirtaada iyo noloshaada iyo waxyaabaha aad samaysid oo dhan ay banaanka tagayaan sababtoo ah qofkan shaqaad iskugu timaaday hawl baad iskugu timaaday adigana dan baad leedahay asagana dan buu leeyahay oo waa shaqadiisa waxaan inuu qabto marka maadaama sidaas aad iskugu timaadeen haddana dee dad ajnabi kale tihiin oo kale oo maanta qof Soomaali oo kale markuu kula joogo kale ku caawinayo kale waad dhihi kartaa war walaalo war saan war anoo hebel ah ama anoo heblaaye ah oo kale waad dhihi kartaa laakiin qofka ajaanibka no waxyaabahaas oo dhan ma iskugu imaan inay idin dhex maraan bataatan waa laga fiican yahay marka taasi waa midda gurigaaga midda saddexaad waxa waa gurigaaga yuusan iska dhex fadhiisan gurigaaga waa inuusan qof iska dhex fadhiisan batrooyina kuu timid ama kuu yimid nin ama naag wuxuu ahaadaba gurigaaga iska dhex fadhiisto maanta oo dhan wuu ku arkayaa xaalada uu la socda halkaas uu iska fadhiyaa macnaha mar walba qofku waqti dheer kula sii joogo waxay ka dhigan tahay waa haddii aadan u baahnayn macnaha waa haddii adiga aadan u baahnayn tusaale kale qofkan waxyaabaha rabtu kaa caawiyo waxyaabuu kaa raacayo haye waaba dhamaataba laakiin qofkii in waxyaabihii intuu dhameeyo haddana gurigii iska sii dhex fadhiyo uu joogo kale uu waxyaabo badan sameeyo bataatanba waa mamnuuc waa aniga sida ilata adigu sidii kula tahay adaa taas waa qodobka saddexaad qodobka afaraadna waa xilliga uu gurigaaga uu joogo iska ilaali sida waa xilliga uu gurigaaga joogo uu markaas shaqada qabanayo ama waxyaabihii aad u baahneed oo kale uu ka caawinayo kale iska ilaali sida maxaa kamid telefoonka waa dhibaatada ugu weyn ee dadkeena Soomaalida haysata bataatanba waxaan ku leeyahay qof batrooyin ah oo ilmahaaga waxyaabo ku saabsan ka caawinayo ama adiga noloshaada wax ku saabsan ka caawinayo ama ku yimid iska ilaali telefoon inaad telefoonka ku mashquulshid inaad telefoon aad wacdid inaad telefoonku soo waco inaad telefoonka ku ciyaartid inaad telefoon daawatid waxyaabahaas oo dhan telefoonku markii aad albaabkaas ka soo galo telefoonka ma iska saar bataatanba sababtoo ah qofkan shaqo u yimid asaga caawi asaga markuu shaqada qabanayo adiga la soco control kor istaag sidoo wax u wada arag hawsha gees kala qabo
si asagana ugu fududaato inuu shaqadiisa waqti hore dhamaysto adigana ay kugu fududaato saad hawshaadii iyo hawshii ku taalay ee guriga iyo waxyaabihii kale ee shaqo haddaad aadi lahayd oo kale ay si dhaqso kugu dhamaato ay kugu fududaato waa inaad hawshaa saas lagu dhameeyo oo lagu gabagabeeya marka telefoonka waa boontiga ugu horeeya boontiga labaadna waxa waaye waxaan ku jirnaa waa waaye macnaha telefoonka waa qaybta afaraad qaybta afaraad b-na waxa waaye waa ilmahaaga inaad ku qaylin waa haddii aad ilmo leedahay waa bataatanba ilmahaaga inaad ku qaylin qofkaas intuu kula joogo sababtoo ah ilmaha marka qaar waxaabay sameynayaan waa inaad u qosashaa waa inaad u dhoolla cadeysaa ilmaha hadday wax sameeye waa inaad dhahdaa aabusaan ma wanaagsano ama hooyo sidaan ma wanaagsano ha sameyn sababtoo ilmaha laftirkooda way ku fahmayaan marka qodobkaasi laftirkiisana kor ka xariiq waa kuu muhiim ku anfacaya insha allah qaybtaas waa taas waa qaybta afraad ayaa usoo gudbaya dhakhtarkaaga qaaska qofkaas bataatan baa haddaad dumar tahay faqow artist aad leedahay oo kale ama nin haddaad tahay oo kale way jiraan dhaqaatiir raggana u qaas ah waa inuu qofka saaxiibka ama qofka badarooyinka uusan bataatanba afaara gashan dhakhtarka adiga kuu gaarka waa qodob aada u muhiim ah qodobkaas waa qodobka ugu muhiimsan qodobka lixaad macnaha qofku yuusan kuu ar qof aan isku filnayn macnaha qof noloshiisa aanan ku filnaan karin oo horumar aana gaarayn oo aanan isbedelin sababtoo ah markaad waddan qurba timaadid waxaa laga rabaa waddanka qurbaha inaad asagay la qabsatid asagay fahantid oo tartiib u fahansatid marka qofkan badarooyinka wuxuu kuu caawinaya waxa waaye waa darajadii koritaanka inuu kaa caawiyo si aad heer aad iskugu filnaatay aada u gaartid marka yuusan ku arag inaadan isku filnaanin noloshaadu hoyso qof daciif ah yuusan ku arag mar walba adiga laftirkaaga isbedel samee adiga laftirkaaga hore u soco adiga laftirkaaga luqadii culays ka saar adiga laftirkaaga ilmahaagii iyo noloshaadii isbedel adiga laftirkaaga qaybtii ilmahaaga saad ula dhaqmayso waxyaabihii macnaha mar walba darajadaadu ha sareyso asaga laftirkiisana ha u arko qof inaad tahay horey u socda oo hadhowna uu asagu laftirkiisa uu ku tashto inuu xilli dhow kaa tegi doono laakiin haddii uu ku arko qof meeshaa iska fadhiya isbedelin sidiisa ah ugu heer xataa wuxuu gaarayaa qofkaas wax walba uu samayn karo marka insha allah qodobkan intaasa kusoo goobaya wuu idinku tiro badnaaday waxaan qodobkan aan muuqaalka ku xigo aan ka hadli doonaa sidee qofkaasi ku caawinaya ama badarooyinka ah wuxuu sameeyo aada u samayn kartaa adigu insha allah qodobkaas ayaana muuqaalka soo socda aan ka hadli doonaa waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan fahanteen ood ku mahadsantihiin daawashada bartida youtube-ka horyaalka shacabka haddaad haddaba muuqaalkan aad ka hesheen iyo haddiina ka helinba mar walba waxa waaye subscribe waa ii muhiim dhiirigelintiina waa ii muhiim insha allah intaan muuqaalo kale ku kulmi doono waa anigoo Cabduqaadir Xasan Duuliye ah waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo adinkana waa ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka barnaamijkan iyo muuqaalka. Mac salaam.